فإن فساد ذات البين هي الحالقة. dadka dhexdooda fidna laga sameeyo nin iyo wiilkiisa baa isku dirtay nin iyo xaaskiisa baa isku dirtay laba wada dhalataa isku dirtay laba saaxiib baa isku dirtay laba qabiil baa isku dirtay laba famil baa isku dirtay فساد ذات البين هي الحالقة. ومد حيريس النبي يقول وحيريس لا أقول تحلق شعر ولكن تحلق دين. أنا أقول ما يتم يحيريس تم الله حير النمله ولكن تحلق الدين دين تيحيريس. قفك في النار كشقي ودتك اسكت در مركز في النهورية دين الآن ويسون إيمان الآن بكون عايز قفص وح إيمانه أوليه هي مجد قفك مركو نميمة وركو كان وقفك لورو كاغس وقال وحلقات دونية هذا الكيس إن هذا الروماني مركا كوبات لأنه فاسق وي قفك دتك وركا أوكل قاده وفاسق. إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذي الوجهين برسولك عليه الصلاة والسلام تذكر وحا أبشر بدن قيامها إلهي أدي سمتك لبا وجي لها يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه قال هذا نسيبه كل صعدا قال هذا نسيبه كل صعدا هذيك مركو كل صعدا نسك لكم يجي صاحب وكادق يا شيكل وكابريا وحي الله واحد إذا نحمر ونن مقارنة يا حق بيني كاس نساس كلهم بولا صعدا وذي الوجهين هاد بدتك أبو بديه كاس marka koobaad markuu ku sheego warka uu ku soo qaado horta marka koobaad ha rumaysan ilaano faasiq way faasiqna warkiisa lama rumayso. marka labaad ka reebo waxa tiraaniyo wax hadalka aad ii sheegaysa iska dhaaf ha ii keenin waxa mar dambe. marka saddexaad ilaahay dartii u nac ninkaas iska banac maxay ilaa dadka hadduu xumaanta u kala qaad nackaas balaayu ka shaqeeya adigana warun buu ka qaadaya. marka afraad walaalkaaga maqan ee xumaanta lagaaga soo sheegay adigu waxba aad ku ogeyn ninkan u balaayo kaaga sheegay waxba kuma ogeyn marka hore saaxiibku ku haasoma xumaan ha u malaynin ilaa aad asaga wax ku aragto hadalkiisi danni ha ugu qaadin danni xun ha ugu qaadin xalay ninka shalay saaxiibka ahaydeen maanta wacol baalata war maxaa dhacay waan ku ogay waxa aad sameynayso tuug aan laga tuugsanay baabala war wax maxaa dhacay ninkana waa baskililah illa kana balaayo kugu sameeyay walaalkaaga maqan ee qaa'ibka ee awal caadiga ku ahaa xumaan ha u malayn. midda shanaad tajassus yun kugu xumbaareen oo markii qofkii wax lagaaga sheego inaad hadda baarbaarto oo ceebihiisa raadisay kugu kalif. sifada lixaad waxa weeye inaad uga raali noqonin way naftaada waxaad asaga ka nahaysay asaga waxaad tiri Soomaha war waxaan dadka warka loo kala qaado ma fiicna iska daa adigu marka iska ilaali sifada waa sifo xun saasa laga doonay markii war lagu soo qaado waxa leeyahay man namma minka namma ilayka namma minka ninki adiga war ku soo qaado jaajuus ku soo noqdo adna warka uu ka qaadayaa adiga kaliya kuma shaqeeyo moogta adu maad qoranay lacag ma siisid Soomaa bilaash buu warku ugu keenaa Soomaa bilaash buu warkaaga qaadaya adiga ya ha u malayn inuu xisaan ku sameeyay hal ninkan dabeecadiisa iyo shaqadiisa inuu warka qaado way warku raraab asoo wax kale intaas ka bixin shaydaankii baa soo rartay nin salaf saalix kamida yaa nin uu imaado wuxuu yiri hebel baa sidaa kula markaas wuxuu ku yiri shaydaanku ma waayo boosta kale oo warqada ku dirsada aduu boosta la ka dhigtay Soomaa shaydaanka boostadiisa baa tay ordi dhaaf حبايسو شيء ساسا لدوني لسانكاغا وينات كإلى لسآفاتك سوى حكم إذا إفشاء السر وحي لغو سر يستي إن هذا شيء ويفافني قفك هدوكو إلى هذا وحن واسر وحفدي أدوها كشيء سو واسر كمود هنا أسوها يسكفى فيه لكن أدوها عباها كفافني ورسول قال صلى الله عليه وسلم إذا تحدث الرجل نكو هذو كوشيكي بالحديث شيكو ثم التفت ودنعيها اسكفيري فهي أمانة وأمانة اسك إلال مركو كوشيكي هذو لبدا دنع فيري وإذا هذا البان كوشيكي كعنتو قبت حقه كلتكي حقه اسكفيري سوما وهو أمانة كشيكي هو عبسنا يا بسمار إن لقد مقلوك يا بيا مركا أدوها كشيكي أبو داود بحديث كورنية سنن كيسا كورنية قفك مسلم كأوحى لدونيا إنه سرت حفظيه وقفك ولالكيس المسلم كأنه سرت كفى في نوى
وذكتهن حديث وحكوا أرورتي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قبل إيسا حفصة مركي نقطي نينكي هذه بعد انتي قروب بين نقطي يوحو أبن رقيس أبو بكر قبل إذا حفصان كو قورين يا هدار ربط شبو كين أبو بكر جوابه معلم هينا مدهن ما ينا مدهن بان وقح ما ذي بيقول سيد عثمان بو هذا أبن رقي وأن كسو فيرسنا يا سيد عثمان ما الممركو جوغ كدبو يمد وحي حد يعني وحانكو أنصدي هذا وقت كان إنا نبورسن كريم أوكي سيد عثمان مركب وبو جوابي مركب ورنا وان كسو فيرسن بيقول مركب دمان وبو جوابي سوما لكن سيد أبو بكر شبو كيه وان روانا مدين ما ينا مدين سيد أبو بكر ما يقدر نابود آمس كو آمسي هاي أي قبل إذا نكوي مكرامة وانكسينا يا من كوينا مركز سنة جوابي سعل ما المهم مركز كسو وريق النبي قبل سعودنا عليه الصلاة والسلام حفصة بنت عمر زوجة النبي ما عليه الصلاة والسلام النبي قبل وان ربا ولا نكاح مر الله مركب النبي قبل سأور صدق قبل لسي أيو أبو بكر ويمد عمره مركز قبل حفصة إيسو بنكتي إن وادي عرق وكل هذا اللي واي جواب كل علم واي وادي حماتان أمالين حكوا حمان واي برد واحد جواب ودي على زيهم مالها واحد يقول كلف متى قال أنكو جواب واي قبل وحن أقال رسولك عليه الصلاة والسلام وشيء ويشيء وحيد قبل ناس ربا حفصة أبو بكر ده أمتنا كي أخير بدنابه هاي وقصدي رئيس الرسول وحيد حفصة دوني أنا عمر ورسل مركا waxaan diidayay buu yiri inaan sirta nabiga sheegoon ku iraado war gabadha nabiga doonayay ninna ma ku siyaha dhehna shibahow inaan hadaan iraado sirta nabiga inaan faafiyaan ka cabsanay hadaan mar bas weeye gabadha ku iraadana waxaan ka yaabay rasuulku inuu gabadha ka baxo haduu ka noqdo uu yiraado waa iga bas inaan ku warsadaan rabe marka waxaan kuugu jawaaban garan waayay buu ya hadaan sheegana sirta nabiga inaan sheegaan diiday maya gabadhi waa iga basna waan dhihi waayo hadduu rasuulku ka baxo gabadha Sayyid Umar uu dhalay inaan daayo mar rabin inaan ugu warsadaan doonay saasa ay ugu kaliftay bur aamus sirta say u xifdinayaan fiir hatta kumu siraysan war gabadha rasuulka sheegay aamusna hatta sir uma dhihi inuu rasuulka sirtiisu sheegu diiday alayhi salaatu wasallam sirta inaad xifdiso ku dadaasho arabka lisaanka aafaadkiisa waxa kamid ah qofku inuu iska xifdiyo la doonayo shahaadatu zuur markhaati been awood ورسولك لي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ما إذين شيئا دنبك كأقوين صدح قربك علي ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا حيدا بلا يا رسول الله نوشك رسولك إلهي قالوا النبي قال الإشراك بالله إلهي يقول له شريك قال نمو وعقوق الوالدين لبدي والد أو عاقل لقنق لبضع الصفة مركو شيئا وجلس نبي وسوف فرسته وكان متكئا أساس أجيفه وسوف فرسته فقال وحير ألا وقول الزور هي مرخات بيانه ألا وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور إلى أن رسولك عليه الصلاة والسلام وأن أغني مرخات بيانه له وأن أغني إنه وحن يهي مرء رسولكم موسى آموس عليه الصلاة والسلام وكعل عليها نبي مرخاتب بينه شهادة زور وحاذا أوجين إنها كمرخاتك عضو بينه حديث مسلم البخاري بأورنا عباد الرحمن إلهي مركو تلمامي صفاتك إلهي وكو تلمامي وحكم والذين لا يشهدون الزور وكو أن بينتك كمرخاتك عن أضومها إلهي يون وناكسون صفاتك وناكسون مع الربينات كده داش لسانكاga inaad ka ilaalisaa la doonaya aafaadkiisa waxa kamida alqadaf inaad dadka qadafto qadafku waa maxay waa cayda xun way cay xun inaad dadka tiraado qadaf dambi bay ku keenay yani xad baa lagu yeelanaya qof wax ku cafinayna ma jiro ilaahay wuxuu leeyahay innal ladina yarmuna almuhsanati alghafilati almu'minat lu'inu fi dunya wal akhirati wa lahum 'adabun 'adhim innal ladina kuwa yarmuna almuhsanat gabdhaha dhowrsoon wax ka sheegay gabar dhowrsoon oon xumaan balahayn alghaafilaat xumaanta ba hilmaansan oo waligeed xumaan arag iyo xumaan ku sheegaya qadaf waxa la yiraahdaa qofku zina lagu sheego zaani baa tahlina kuwa gabdhaha wan wanaagsan qadfayo ee mu'minaadka
ragga wanaagsan oo dhowrsoonna waa la mid kuwa qadfayo xumaanta ku sheegayo lu'inuu fi dunya wal aakhirah adduuniya aakhiraba waa la lacnaday ba ilaahay lacnad baa ku dhacday kuwaas walahum waxay leeyihiin cadaabun cadiim cadaab aad u weyn bay leeyihiin ba ilaahay leeyahay rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam man qaala fi mu'minin ma laysa fihi qof mu'mina qofkii ku sheego ma laysa fihi wuxuusan ahayn askanahu allahu radqata alkhabaal xataa yakhruja mima qaal walaysa bikhaarij qof mu'mina dembi uusan lahayn oo xumaana qofkii ku sheego ilaahay wuxuu geliyaa oo ka waraabinayaa radqata alkhabaal waa maxay waa ahlu naarka carunkooda waa dadka ahlu naarka markii la cadaabo wasaqda iyo carunka ka baxaya taasa ilaahay waraabinaya ilaa uu dembigaas ka baxo mana ka baxaya weligiis imaam axmed baa xadiidka sunankiisa ku warinaya dadka yacni qadafka samaynayo oo qofka zinada ku sheegaya hebel waa xumaanlow qof waa zaani kan waa saas odhanaya sharciga islaamka wuxuu ku waajibinayaa 80 karbaash in lagu dhufto ilaa qofku ku cafiyo mooyaane 80 karbaash in lagu dhufta yu sharciga ku waajibinaya wax markhaati oo hod galeysana male markhaatina ma gala qofkaas liqawlihi ta'ala walladina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada kuwa dadka wanaagsan xumaanta ku sheegaya zinada ku sheegaya ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أفر قف ومرخانين أو مرخاتين أن كينين قف كانوا حمام بصمينيا مرخاتين وما هي فاجلدوهم 80 جلدة سيديتا كرباش كل نفتا إلهي ولا تقبلوا لهم شهادة وحمر خاتي أنا هكا أقبلين أبدا وليين مرخاتين ما قالك أصلا فاسق بالنقضيوة حد أسانا لقوه فينا قف كأنه كعفية موياني سيديتا كرباش بالوقو قول فني مركا هذا الكم فدود ولا يسكورنا يوح فدود ما هو waxaa ka mid ah aafada lisaanku uu leeyahay inaan carabkaaga ka ilaaliso la doonayo al-yamiinu al-kaadiba dhaarta beenta ah waxba lagu weydiinaya xukun baa waxba la qabsanaya markaasuu dhaar beena ku dhaaranaya wuxuu rasuulku leeyahay sallallahu alayhi wasallam man halafa ala maali imri'in muslimin bighayri haqqihi laqiya allaha wa huwa alayhi ghadban qofkii dhaarto qof muslima maalkiisa ku dhaarta bighayri haqqi waxbay isku qabsadeen markaasuu dhaar beena ku dhaartay laqiya allaha wa huwa alayhi qadbaan ilaahay wuxuu qiyaamaha la kulmayaa ilaahay oo caraysan ilaahay oo ku caraysan baa lagu horkeenaya liqawlihi ta'ala innal ladina yashtaruna bi'ahdi allahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaa'ika la khalaqa lahum fil aakhirati kuwa dhaaranayo ahdiga ilaahay ثمنا قليلا كو قادني إلهي دارتيسي مقعي إلهي باي وحي كو قادنيان وحير دار بينو دارني وكو آخراء النصيب كلهم باي إلهي ولا عذاب يا كواس ورسولك لي عليه الصلاة والسلام حديث صحيحة وحكول لي من اقتدع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة ننكي قف مسلمة حقي سقاته دار بين أنا كو قاتل ودارتي waxbay isku qabsadeen qofkii xaq laha marxaati keen bal marxaati buu waay kii kala been ku dhaartay markaas Allah xukum faqad awjaba Allah lahu nar ilahi nar buu waajibiyay wa harama alayhi aljanna jannana ilahi waa ka xarimay dadkii majliska fadhiyay nin kamid ah wuxuu yiri ya rasuulallah wa in kana shay'an yasiran wax yar ba han noqday haduu been ugu dhaarto nar ba waajibayso qaala wuxuu nabigu wa in qadiban min arak laan caday abaha noqdo rumaygan cadayga lagu cadaydaba ha noqdee hadduu been ugu dhaarto naar baa ilaahay waajibinay wax fudud ma hawlaale intee dad ay qaadanayaan dad kale xuquuq ay leeyihiin dhulkoodii bay qaadanayaan guryahoodii bay qaadanayaan wax uu maalkiisa oo dhan buu qaadanaya biqayr xaq buu ku qaadanaya te naar umba u diyaar asaguna waa inaan ilaahay ka cabsano walaalayaal lisaankeenan xibinkan waa inaan ilaalino carabkeenna waxa ka soo baxaya waa inaan ilaalino rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhibaatada uu leeyahay iyo carabkan sida uu culus yahay weeye waxa uu uga digayo carabku nabigu sida uu qabanaya kufa calayka hada war carabka iska qabo lisaankaaga qabo iska ilaali buu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam dadka waxa ugu khayr ka badan qofka afkiisu hadalkiisu uu gaaban yahay hadalkiisu uu xadidan yahay
wixii wanaagaho la weydiiyo buu ka jawaabaya waxa kale qofka iska hadla un maaha dadka ugu fiican waa qofka hadalka yar way qofka hadalka badan dambi kama nabadgelaya marnaba lisaankeenna aan ilaalino walaal ilaahay aan ka baqno subhanahu wa ta'ala waajib baan saaran mas'uuliyad baan saaran waxaan ku hadlayno dhan waa wax ilaahay nagu xisaabin doono ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wax alla waxaad ku hadasho raqiib iyo atid baa qoray bari qiyaamana waa lagu soo hordhigaya jannada wax lagu galo waxa ugu khayrka badan waa taqwada ilaahay iyo xusnul khuluq waxa naarta lagu galo waxa ugu badan waa lisaanka iyo farjiga lisaankeenna aan ilaalino ilaahayna aan ka baqno digriga ilaahay iyo daacada ilaahay aan ku gudanno